gudoomiyaha garabka dhalin ee heer qaran xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdirashiid Cabdi Jaamac oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boorama ayaa si adag u dhaliilay dalada dhalinyarada ee Soomaaliya isagoo ku eedeeyay in ay ka baxday xayndaabka dhexdhexaadnimo ee dhalinyarada Somaliland. Gudoomiyaha Cabdirashiid ayaa waxa uu dalada dhalinyarada ee Somaliland ee Soomaaliya ugu baaqay in ay 24 saacadood gudahood ay ku cadeeyaan mowqifkooda dhexdhexaadnimo ee dhalinyarada Somaliland. sidoo kalena waxa uu shaaciyay in xisbi mucaarad ahaan ay il gaar ah ku hayn doonaan dalada dhalinyarada Somaliland. hadaladiisina waxaa ka mid ahaa maanta oo ay tahay bisha 9-keygii 2021 waxaan jecelahay halkan inaan kaga hadlo arin muhiim ah doorashada iyo dhalinyarada ka tartamaysa. sidoo wada socono dalada dhalinyarada ee Somaliland ee Soomaaliya waxa loo aasaasay inay dhexdhexaad u noqoto dhalinyarada reer Somaliland 6 gobol ee degan yihiin. waxa loo aasaasay in ay dhex ka noqoto saddexda xisbi qaran ee ku hirdamaya talada dalka. 7 bishan aynu ku jirno waxaan magaalada Hargeysa aynu ka aragnay in dalada dhalinyarada reer Somaliland ee Soomaaliya ay ku taageereysay musharax kamida musharaxiinta dalka kana sharaxan magaalada Hargeysa. waxaynu aragnay board lagu dhajiyay xaflad oo ay ku qoran tahay musharax hebel oo xisbi dalada Soomaaliya ay ku taageersan tahay inuu ka tartamo magaalada Hargeysa. anagu xisbiga wadani hadaan nahay kuma degdegno ururada dhalinyarada. xisbiga wadani waa xisbi dhalinyaro laakiin maanta wixii ka dambeeya dalada dhalinyarada reer Somaliland waxaan ku hayn doonaa il gaara dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan dalka. waxaanan ka rabnaa dalada dhalinyarada reer Somaliland ee Soomaaliya inay 24 saac gudahood ku soo cadeeyaan mowqifkooda ah dhexdhexaadnimada saddexda xisbi qaran iyo musharaxiinta dalka tartamaya. ma jeceli inaan ku degdegno go'aan masiiriya oo taabanaya dhalinyarada reer Somaliland. laakiin maanta wixii ka dambeeya dhalinyarada reer Somaliland waxaan u sheegaynaa dhalinyarada taageerayaasha xisbiga wadani waxaan u sheegaynaa anigoo ku hadlay waliba afkooga inaan il gaar ku hayno dalada dhalinyarada ee Soomaaliya. Firdawsi Jaamac Salebaan, wararka Iftiin Somali TV.